السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha May 2014 annaga oo ah mas'uuliyiintii wargeyska Haatuf gudoomiyaha wargeyska Haatuf Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo anigoo ah tafatirihii wargeyska Haatuf Axmed Cali Cige oo imika muddo 2 bilood ku dhow wargeysku xayiran yahay ayaa maanta waxa shirkan jaraa'id nagu kalifay in aanu qabanno qodobo runtii aad u muhiim ah oo ku saabsan dacwadii annaga iyo xukuumadda noo dhaxaysay aanu xataa xarig sharci darro ah kala kulannay qodobada maanta shirkan jaraa'id waxaa idin faahfaahin doonaa Yuusuf Cabdi Gaboobe qodobada maanta aanu halkan ku soo bandhigi doono waxaa ka mid ah garsooraha oo aanu oo 2 dacwadood annaga oo durnay dhinaca isaga oo aan dacwadda dhexdhexaad ka ahayn annaga oo durnay haddana nagu soo noqday dhowr jeer oo dacwadda si ka baxsan sidii cadaalad ahayd u qaaday xeerkii saxaafadda oo aanu in badan soo jeedinay maadaama oo dalku uu leeyahay xeerar lagu dhaqo saxaafadda oo sharciya oo ay golayaasha iyo madaxweynuhuba ay saxeexeen isla markaana ay ansixiyeen in laga tallaabsaday oo aan haba yaraatee aanay nooga soo naasacadayn in xeerkaasi saxaafadda dacwadayada loo adeegsado qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay maxkamadda rafcaanka inaanu rafcaan uga qaadano xukunnadii ku dhacay wargeyska Haatuf ee lagu xayiray xukunkan kale ee dacwadan socota ilaa iyo hadda judgmentkeedii si official xukuumaddu umay gaadhin laakiin wargeyska Haatuf iyo website-yadeedii iyo wargeyskii Somaliland Times intaba xukuumaddu waxa ay ku riday waxay ku riday xukun ah xukunka ilaa iyo hadda annaga oo damacsaneyn inaan rafcaan ka qaadano garsoorku waxa aad moodaa amba u muuqdaaba in uu dhinacii dhexdhexaadnimada ka baxayo kana baxay xaqiiqatan waxaan ku soo dhaweynayaa Yuusuf Cabdi Gaboobe oo idin faahfaahin doona qodobadaasi aan tilmaanay ku soo dhawow Yuusuf waxa in maanta ku mideysanayd dhageysigii saddexaad ee dacwadda lanoo haysto garsooruhu dib u dhigay oo bari ayuu ka dhigay waxaanu ilaa hadda ku dhagan yahay oo maanta u dambeysay gareeqaanada in Haatuf kala hadleen durus ilaa tiraba 3 jeer ayaanu durnay garsoorahan in la naga bedelo sababtoo ah sidii Axmed sheegay hab cadaaladeed kuma qaadayo kiiskii ilaahay iyo khalqigiisuba way arkayeen labadii dhageysi sidoo wax u waday xukun qorqooshnimada ah kolka annagu waxaanu doonaynay in la naga bedelo codsiyada waanu qoray dhowr jeer waxaanu u gudbinay cidda ay khusayso garsoorka ah waxa kaloo aanu codsanay oo hore u codsanay in aanu rafcaan ka qaadano maxkamadda gobolku ee gudoomiyaha ka yahay Faysal Dhagadhago waxay nagu riday 4 xukun oo aananu midna iska difaacin oo uu horeeyay kii lagu xayiray wargeyska kii haddana lagu xayiray madbacaduhu inaanay wax noo daabacin kii saddexaad ee lagu xayiray website-yada Haatuf iyo Somaliland Times kii afraad ee lagu xayiray safarkayga inaan dibadda u bixi karno anigii Axmed markay intaas oo xukun gaadhay maxkamaddaasi waxaanu codsanay inaanu ambiil u qaadano maxkamadda rafcaanka codsiga isna marka aan dhaafo iyo codsiyadii kale ka horeeyay durista waxa muhiim ah iyaduna oo jirtay oo kaba sii wada muhiimsan oo aanan marnaba ka tanaasulayn waxay ahayd xeerka saxaafadda Somaliland in lagu dabaqo dacwadeeda maadaama uu jiro xeer saxaafadeeda Somaliland in la fuliyo oo lagu dabaqo wixii doonaabaha nagu dhacaan dulmi badan iyo tacaddi badan baa nagu dhacay
xagga garsoorka nagaga dhacay xagga ciidamada bilayska nagaga dhacay xagga xukuumadda nagaga dhacay culays fara badan oo tacadiya ayaa nagu dhacay waxa aanu kaga soo kaban karnaa haddii xeerka saxaafadda la dabaqo oo lanagu fuliyo inta la adeegsanayo xeerkan Soomaaliya ciqaabta xeer ilaalintu markay maxkamadda joogtay way ka hadleen waxay yiraahdeen xeerkan yare in reyaal berigi ku khiyaameyseen oo saxaxay annaku diyaar uma nihin inaan ku amal fallo afkooda ayaa dadkii oo wada jooga ay ka qirteen على حال dhammaan codsiyadayada si loo sugo cadaaladii waa la naga diiday qariiqaanadayada waxaanu maanta u sheegnay in aanay dacwadii habka caynkaas kaga qayb gelin oo ay ka joogaan ilaa iyo inta la fulinayo codsiyadan xaq aan u leenahay maaha waxaan anagu cid khasab kaga doonayno waa wax lagu amal falo oo nidaamka garsoorku oo ogyahay oo la raaco marka la raacayo nidaamka garsoorka waa wax caadiyan loo codsan karo kolka anagu waxaan u sheegaynaa raayal caamka in dacwadeedii la jaahabaabiyay la doonayo in xukun lagu rido xukun qarqoosha oo degdeg ah anagu waxaanu leenahay annaga waxa la noo haystaayo ay ku dacwoonayaan xukuumaddu matalan in aanu aflagaadeynay amba aanu sharafta dad mas'uuliyiina oo dawladda ka tirsan aanu meel kaga dhacnay anagu waxaanu leenahay taasi ma jirto laakiin kaba soo qaadinay jirtay war waxay sharaf kaga dhaceen oo ay ceebeeyeen dalkii Soomaaliland iyo karaamadiisii iyo subcadiisii habkan ay u qaadayaan garsoorka ee dacwadda loo qaadayo dhammaan waxa dhaleeceeyo ku qosqoslaya oo ka faalooday oo si moogtahay uga faalooday ay Soomaaliland ay nusqaan ugu jirto wargeysyada warbaahinta lawyerska adduunka ururada saxaafadda markay arkeen xitaa maqaalada la noo haysto way yaabeen wax bini aadam lagu dulmi karaba maaha oo lagu tacadii karo marka waxaan hadalkayga ku soo koobayaa annagu dacwadan socota waxaanu doonaynaa in ay noqoto dacwad cadaaliya cadaalad baanu rabnaa annagu intaasaanu soo dhiganaynaa haddii cadaalad la helayo oo kiiskayga cadaalad lagu qaadayo laakiin intaa wixii dhaafsiisan annagu ma ogolin mana yeelin annagu ka qayb geli mayno kolkaas annagu ka qayb geli mayno maxkamad caynkaasa haddii ay ku sii dheganaadaan garsoorahan aanu ka cabanayno iyo maxkamadda lafteeda aanu ka cabanayno ee aanu doonayno inaan rafcaan ka qaadano annagu ma tegayno waxaanaanu rabnaa oo aanu xaq u leenahay in xeerka saxaafadda lanagu dabaqo number 2 in lanaga bedelo garsoorahan dacwadda ku dhegan ee aad moodo in cidi amar ku siisay inuu ku dheganaado oo lanoogu wareejiyo dacwadda garsoore cadaaliya waxaanu rabnaayoo kale in maxkamadan afarta kiis nagu riday lanaga bedelo oo lanoo bedelo maxkamad tarafcaanka oo kale si ay dacwadeeda si dhexdhexaadnimo u qaado waxaan ogeysiinayaa dadka in gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee ka mas'uula dacwadani uu laftiisu sheeganayo inuu dhibana yahay oo uu leeyahay haatif baa wax iga qorqorto kolkaas sidee loogu aamini karaa kiis caynkaasa in maxkamad iyadiiba sheeganaysa inay dhibana tahay